السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaashiina Saacad. maanta waxaan jeclaystay insha Allah inaan idinla share gareeyo waxyaabihii aan ku mashquulsanaa 3 weeks ago aan nahay waa idinla share gareynaa. insha Allah waxaan jeclahay inaan wax ka faa'iidaan waxyaabahan aan ku mashquulsanaa waxay ahayd goal reset maadaama sanadka 2021 halfkiisa aan soo dhameynay alxamdulillah oo halfka kaleetan aan u dhameeyaa Allahu a'lam qofka waqti uu noolaana inaan sii gaarayna Allah na gaarsiiyo cumri dheer oo caafimaad Allah wada siiyo. laakiin waxaa muhiim ah inaan dib iskugu laabna aan fiirino waxyaabihii aan soo qorshaysanay sanadkan markuu bilaabanay ahdaaftii aan soo dejisanay whether it's ilmaheena ahaan waxyaabaha rabnay ilmaheena inaan kala shaqeyno mise waxyaabaha aan nafteena ugu talagalnay inaan kusoo zaa'ino waxyaabihii wixii noo hagaagay iyo wixii noo hagaagi waayay meel waxa sheekada meel shay noo maray in la fiiriyo reflection aan ku sameyno muhiim ah sanadka halfkiisa marka la maraa mar walba reflectionka muhiim waaye monitoring waxaa la gooshaadi waxaa waa ina aad dib ugu laabataa aad tiragareysaa taqyiim ku sameysaa aad fiirisaa waxyaabihii kuu socdo waxyaabihii caqabad kuga ah oo kaas dhib kugu ah oo gooshaadii kaa hor istaagan inaa mar walba aad qiimeysid wixii kugu shaqeynayo inaad aragtid waxa kaa caawiyay oo kugu caawiyay inay waxaas ku shaqeeyaan gooshaas because goosha marka la gaarayo qof walba gool gaaray mise gool walba la aan dhigano ilaah horta of course tawfiiqda allaha ilaaha goosheena true ka dhiga ilaaha na gaarsiiye laakiin waxyaabaha badanaa na gaarsiiye waxaa waaye ilaahay ka soko waxaa waaye compound waxyaabo iska gaaray waxyaabo aan sameynay steps anaga qaadanay oo iska gaaray stepskii marka isku darsamaan aakhirkii waxay nageynaysaa gooshii inay noqoto reality ee gooshii aan gaarno so marka maadaama haddaana aan ka mashquulno ina aan reflection ku sameyno mise ina aan ogaano meeshii compoundki ma sameynoona waxyaabo improvement ma sameynoona steps ma qaadanoona waxyaabo isku keenda darsan mooyaan meeshii aan u soconay wadadii aan u soconay ma kusii soconaa mise mar hore aan wadada istaagnay oo gooshii aan hilmaanay mise aan ka mashquulnay mise aan ayna la cuslaatay u malaynay inaan samayn karin aan iska dhaafnay oo iska give up garaynay mise waxaa laga yaabaa inaa hadda gooshii aad dib ka qiimeysid aad isdhahdid gooshaan sanadkaanayta muhiimi ma aha goosha badanaa aniga oo kale waxaan sameeyaa priority wax la dhaha jirto adduunka priority wixii ku muhiimsan inaa focus ka saarto mar walba waxaa baniaadamku iska daciif meel kasta focus ma saari kartid marka goosha kuu muhiimsan mise priority kuu muhiimsan waxaa laga yaabaa in January sanadka markuu bilaabanayo wax aan qortay oo laakiin couple months after life adduunka waxa isbedelaya mise life circumstance kusoo baxa oo priority-gaaga shift ku noqonayo so mar walba waxaa fiican priority-gaaga ma gooshi lama ku jirta adiga mise priority-gaagina waa la socotaa meeshii aad energy-gaaga muhiim u ah inaa aad ku bixisid ma ku bixinaysaa mise hal meel aad ku dhigan tahay hal meel ay kaaga caddahay taasna muhiim waa inaa aan qiimeyno because taas waxay noo saamaxaysaa inaan aragno wixii aan rabnay inay la socoto wixii noo muhiimsanaa so ilaa hadda after 5 years hadda ka bacdi ah mise after 10 years 10 sano hadda ka bacdi ah ma rabta inaad dib usoo u fiirisid aad dhahdid alla waqtiga energy-ga waxaan ku gubayay waxaas waa laga fiicnaa mise waxa aniga focuska saaray waxyaabo kale iga hoos baxay baniaadamana of course we're not gonna be complete waxyaabo badan oo inaga hoos baxaysaa laakiin waxaa muhiim ah mar walba in aan la socono waxyaabaha aan noo muhiimsan iyo waxyaabaha noo hagaagooyo iyo waxyaabaha rabna inaan nolosheena kusoo zaa'idino iyo waxyaabaha rabna inaan nolosheena aan ka bedelno adduunka waa muhiim walaa tansa nasiibaka min addunya allah of course nasiibkaaga ha ka hilmaamin yani waxyaabaha adduunka nasiibkaaga adduunka ha ka hilmaamin aayadda qur-aanka dhigay of course aayaddaasna waxaa lagu sii xijiyey wa axsin kama axsana allahu ilayk also wanaaji ilaahay soo kuu wanaaji adduunkaagina ha hilmaamin ilaahayna wanaaji soo kuu wanaaji so labadaas inaa isku wadno waaysa adduunkeenana aan hilmaamin of course ilaahay fursooyinkaana siiyey na inaan hilmaamin aan wanaajino wanaajinta ilaahay iyo ahdaafteena gaaritaankeeda way isla socotaa mana kala bixi karto so marka waxaan jeclaystay inay waxyaabo yar ay idinlaga sheergarayo personally ma jecli in aan nafteena ahaan aan ka hadlo because ma jecli inaan nafteyda ka hadlo qof private iska ahay social media xataa aan soo geli jirin Facebook wala YouTube waa first time aan meel soo fadhiisto waxay u kalifin waxaa waa in aan dareemo in mas'uuliyad iga saaran tahay in aan share gareeyo waxyaabaha aan aan dadka u faa'iideyn karo aan soo bartay in aan
aan dadka kale community aan u faa'iideeyo saasaan usoo galay mas-uuliye inaan dareemay inay i saaran tahay so waxaa aniga maadaama channelkanito channel oo waalidiinta ugu talagalin focuska waalidka aan saarayo horumarinta waalidiinta kalsoonida waalidnimada kordhinteeda iyo horumarka waalid iyo ilmo waalid of course waalid hadaan support garayno waa generation anagoo support garayno because waalidku wuxuu noo soo saaraa ilmihii futureka mustaqbalka ahaanayaan so allaha garabkeena gala anaga dhan ka waalid aniga marka ka waalid ahaan usually aniga nafti ahaantay markaan goal samaysanayo I usually have 3 goal ka badan ma samaysto sanadkii so far I mean I don't know in the future ku xisbadali doon but so far 3 goals ka badan ma samaysto 3 goals kaasna waxa waay halaa muhiim ah labo aday naqanin it's okay yani wax isma bedela laakiin priority-ga halaan saara halaa muhiim ah taas aday sanadka ay hagaagto I'm good alxamdulillah laakiin saddexaan samaystaa halaan xooga saara soo galayta ilmaha marka aan u sameynayo hadaaf ilmaha hal gool halkii cunug alxamdulillah allahana barakeeyo Soomaali family badan aan ahay so aniga masha Allah I have 5 children hal gool u sameeyay halkii cunug hal gool sanadkii halkaas gool marka waxaan ka soo bixiyaa usually 4 habit waxa la dhahaa dhaqamaha qiyamka mise dhaqanka arabtid inaad ku beertid cunuga so 4 dhaqana aan usually aan sanadkii aan xooga saaraa 4taas dhaqan waxaan u kala bixiyaa inuu 3 bilood 3 bilood 13 weeks sanadkii aan u dafayd gareeya so 3 bilood waxaan saaraa cunugaas xoog waxaan ka saaraa halkaan shay waxyaabaha kalena waa iska inatira you know like of course unless there's something a concern soo baxo laakiin kana muhiimsan ani kan say aan energy-gayga halkaan shay halkaan ina aan qarsil qiyamkaan inaan qarso gareeyo mise gooshan ina cunugan habitkan inaan baro for example waxaan rabaa cunugan inuu kaligiisa staker gareeyo oo qabaysto oo mise kaligiisa waxaan rabaa inuu kaligiisa wixiisa samaysan karo oo qolkiisa kaligiisa hagaajisan karo for example kaas qiyam waay marka steps ay u baahan tahay so stepska inaan gaarno waay oo lagu sameynaa anyways kaasa habit lahaa laakiin goosha weyn oo badanaa aan fiirinayo ma ahan small stuff goosha weyn waxaa cunugan maxaan rabaa 1 year from now maxaan rabaa isbedelka aan rabo inaan ka arko cunugan overall waxyaaba dhan marka laisku daro ka akhlaaqiyan ka diiniyan ka academiciyan maxaan rabaa 1 year after maanta 1 year after 1 year waxaan rabaa cunugan inaan ka helo mise cunugan wuxuu u baahayaa mostly sanadkan oo ka caawinayo emotionalkiisa ka caawinayo xiriirkiisa iyo xiriirkayga whatever sanad walbaba waxaan saaraa hal shay also beside that hal hadafa also aan saaraa oo jamiican as a family so one family goal one child goal oo hal goal oo familka dhan aan u dhigo oo anaga dhan aan noo dhexayso aan kala shaqaynayno iyo hal gool oo cunug walbaba leeyahay halkaas gool oo afar qaybood u kala baxdo mise 4 habits iyo waxaa waaye waxaan sameeyaa iyo 3 goals aniga ah oo hal ii muhiimsan labana ay tahay waxyaabaha aan rajeynayo haddaan aan ii suurta gasho saasaa u kala bixiya ani marka waxyaabaha of course muhiim waa inaan ahdaafteena share garaynin oo ma fiicno in ahdaafta la share garayo mise oo future plans la share garayo sideeda mustaxaba ma ahan laakiin waxaa muhiim ah waxa dadka uga faa'iideyn karta inaa faa'iido adoo details aad galin so anyway waxaan jeclahay in idinkan ahdaaftiina haddaa hadaf dhigatay haddaa cunugaaga u jeedid cunugaaga waxyaabo oo arabtid inaa kusoo zaa'idid sanadkan cunugaaga inuu maybe homeworkiisa kaligiisa samaysan karo cunugaaga inuu kaligiisa qabaysan karo mise cunugaaga inuu basic stuff I'm talking about basic stuff mise cunugaaga inuu salaadiisa ay on time tahay oo salaadiisa iyo wuduugiisa iyo all that oo 100% yani or 99% oo arabtid inaa ku abuurtid sanadkan inaa markaa goal ku qoran tahay waxay kugu caawinaysaa in focuska aad saartid wixii aad ilowin waxaana muhiim ah idinkula talin lahaa ani usually aan arkay inay shaqayso in goosha wixii aad rabtid aad meel ku qoratid computerka oo kaleeto mise telefonka screenka haddaad saaratid aad ku save garatid telefonka mar walba arkay gooshii hortaaday saaran tahay ma hilmaamaysid because badanaa dadka waxay ahdaftooda dadka badanaa new york ahdaafaa la qortaa laakiin dadka dhan ahdaftooda ma gaaraan waxaana keenay
lose of track waa qofka wuu hilmaamaa wixii wuu ka leexanaa wadadii gooshii biniaadanka wuu hilmaamaa wixii waa ka caajisaysaa laakiin waxa marka aa indhahaaga saaran yihiin markasta meelaha ka arkaya guriga meel kuugu dhegasay darbiga ku dhajisid hadafkaagii mise telefonkaa kugu save garaysanaya mise computerkaaga screenkiisa ku save garaysatid dan hortaadi waa 24/7 waa arkaysaa mar walba aragtidna caqliga baatinka wuxuu process garaynaa yes reminder ay u noqonaya wixii waxyaabo I don't want to become scientific stuff لكن مهم واي وحياو benefit scientific ahaan maskaxda ay ka caawinaysaa ay marka ay xasuusintaas waa muhiim inaan haysano waxyaabaha hadafta aan ku shaqeynayno inaan meel ku qoran inshallah I will like to share with you also monitoring waxyaabaha kaleeto oo muhiim oo beside hadafka qoritaanka focuska ka caawinaya waxaa kaloo muhiim monitoring waxaa lahaa inaa qiimeysid hadafkii bini'aadamka marka aan isdhahno for example sanadka kale marka sanadka hadaf aad samaysatid dadku waxay sanadaan qabaa waa waqti dheer markaa qabtid caqliga wuxuu ku dhahaa waqti badan aa qabtaa there is no emergency there is no rush tartiibtaada yani caqliga ma dareemayo in wixii uu u baahan yahay inuu sameeyo so taasa marka ay kugu aa ka caajisay mise aad leedahay waqti badan aa qabtaa hal sanadka maadaama oo dhammaan biden waa gaara laakiin haddaa adiga sanadka u qiimaysid saddex bilood waxay kuga caawinaysaa inaad saddexdan bilood xooga saartid 3 bilood ee ka hoos baxdo 3 bilood kale kaama hoos baxayso dhan waa isqiimeynaya waa isla fadhiisanay naftaadi usbuuciyan shahriyan dan 3 months haddana 3 bilood so week walba aakhirkiisa inaad isqiimaysid bil walba aakhirkeeda aad isqiimaysid 3 bilba aakhirkeeda aad isqiimaysatid haddana sanadka nuskiisa aadana taqyiim kullu ahdaaftaada aadana qiimaysatid mar kale reflection ku samaysid waxay ka caawinaya marka inaad ahdaaftii aad hilmaamin inaad ahdaaftaada insha allah agaartid ilaha anagana ahdaafteena dunya wal aakhira ahdaafteena na gaarsiiyo jannatul firdausna noogu arsuqo adduunkan waa lagu bari waaye waxaa lahay maalinteeda soo kacdid habeenkii caabir sabiil waaye waa wada la maraayo waa adduunkanayto so allaha noo wada fududeeya anaga dhan allahana tawfiiqda fi dunya wal aakhira waafajiyo جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته